السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaasha qiimaha badan dhammaan waxaan leeyahay meel kasta dunida ka joogtaan ramadaan mubaarak. yaa ramadaan ahlan wasahlan, yaa ramadaan soo dhawow ramadaan ahlan wasahlan. bisha ramadaan waa bishii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qur-aanka soo dejiyey, waa bisha bilaha ugu fadli badan. waxaan dhahaynaa ramadaan mubaarak, laakiin ramadaan kariim culimmada waxay yiraahdeen arrin sax maahin, qowlkaas saxiix maahin. marka qofka muslimka waxaa wanaagsan inuu yiraahda ramadaan mubaarak. haddii aad rabto daliisheeda ama aad isleedahay waxaan rabaa inaan helo referensiga www.google.com waxaa ku qortaa hal yajuuz an naquul inaan niraahna ramadaan kariim. kadib fataawooyinka ibnu cuthaymiin iyo culamaa fatwa lajna daa'ima kulli ayaa kuu soo bixi doonaan iyo sheekh fawzaniyo. kadib waxaad helaysaa jawaab saafi ah. english hadduu yahayna Q&A oo question and answers ayaad english ahaan ugu qori kartaad, waa helaysaa. haddaad luqadaha kala taqaanona dabcan ku qor luqadaad taqaano, jawaab saxa kuu soo baxaysa. ramadaan mubaarak aan leenahay, ilaahay hanaga aqbalo bishan ramadaan oo maanta axad baa la joogaa. rajaynayno maalinta isniinta beri inay dhalato. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa cibaado suuban dhammaanteennaba. bishani waa shahru tawba, kuwa towbadooda la aqbalo allah naga dhiga dhammaanteenba. waa shahru lmaqfira, midka laiskugu maaragtay dembi dhaafa allah nooga dhiga subxaana wa tacaala. uu nabiga yiri sala allahu calayhi wasalam xadiiskii abi hurayra, qofkii sooma bisha ramadaan oo iimaanan wa ixtisaaban isagoo ilaahay ajar ka dalbayo, qufira lahu maa taqadama min dembihi wamaa ta'akhar. marka dembigiisa ayaa loo dhaafaya. oo shahru lmaqfira waaye, shahru raxma waaye, bisha laiskugu naxariista oo dadka muslimiinta laftirkooda inay isu naxariistaan. waa shahru cidqu min annaar, oo naarta laiska xoreeya. ilahay waxaan ka rajaynaa inuu dhammaanteedba noogu dara kuwa naarta laga xoreeyo. waxaan leenahay dhammaan marka walaalaha daawashada qiimaha badan ramadaan mubaarak meel kastoo dunida ka joogtaan. ramadaanka khayrkiisa waxaa ka mid ah inaan ku dadaalno in suxuurta aad loogu dadaalo. suxuurta waa baraka. waxaa ka mid ah afurka dadka masaakiinta inaynu hore u afurno dabcan, oo sida shiicada la soogin waqti dambe in la afura. marka haddii qoraxdii halkaas ay dhabarka jeedisa oo mugdigan uu yimaado, waa qofkii soonna waa afur uu yiri nabiga sala allahu calayhi wasalam. marka afurinta dadka masaakiinta ajar baa laga helaa. haddii aad marka adiga xanuunsan tahay oo qofka soon horta wuxuu waajib ku yahay qof muslin ah oo caaqil ah oo waalayn. haddii marka aad adiga safar tahay, safarkaaga iska aad oo markaad ka soo laabata ayaad maalmihii kale fa iyo ayaamun macduudaad ayaad soo celin kartaa, ayaad soo celin doontaa. haddii jiradaada tahay jire marka maalin kastoo joogtaa, dee dad masaakiin 30 masaakiin inaad afurisa ayaa lagaa rabaa. waxaa ku bannaan in hal habeen keliya aad afurisa, in habeen kastoo aad masaakiintii afurkooda yeesho. qiimaha lacagtaad u diraysa ama ad bixinaysa waxay ku xiran tahay quuti beledi yoomihi. maalintaas wixii afur noqon kara magaalada muqdisho ama magaalada hargeysa ama magaalooyinkii soomaalida ku nooshahay. marka qiimaha uu qofku afuri karo waxaad weydiisaa wadankii, kadibna qiimahaas 30kii maskiin ku dhufo, kadib waxaa kuu soo baxaysa xisaabta saxda. sadaqada la badsado waa shahru fadli badan. marka sadaqada in la badsado inaynu ku dadaalno, akhrinta qur-aanka oo la badsho. qur-aanka kariimka intaad taqaana akhri, ha ka xishoonin. haddaada aqoonina madaarista gal oo iska qor online training ama online dugsi oo qur-aanka baro. qur-aanka keliya maaha ilmaha yaryar inaynu ku qasabno. aabahay hooyada waa inay qudwo u noqdaan oo akhriyaan iyaga. hooyooyinka waa inay akhriyaan. marka waxaad arkaysaa dadkeena inta badan ba carruurtun baa xoogga la saaraa, layidhaha waree qur-aanka baro, qur-aanka akhri. adiga weyn maxaa kuu diiday inaad qur-aanka barata? maxaa kuu diiday kalaamullah inaad akhrisaa? wax kuu diido kaa hortaagana ma jira, shaydaan mooyaane. salaada taraawiixdoo la xaadira waa fadli aad u badan qofka inuu markuu soomo salaadaha taraawiixda u tukado. dadkoo khayrka la fara, wanaagga inaynu isfarna, xumaantaynu iska celin. waalidiinta loo ixsaanfalo. waalidiinta haddii kula joogaanna in la booqda oo laga warqabo. hadday kaa fog yihiinna taleefonka loo dira, xaaladooda laga warqabo waa waajib. ilaahay la caabudo
kadib waxaa ku xiga wabilwaalidayni ixsaana labada waalid hala ogaado haddaad doonaysa inay carruurtaada ku wanaagsanaadaan u wanaagsan waalidka haddaad doonaysa inaad jannadii aad gasho kama qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam labada waalidkaagii ixsaan u sameey axsaabtu shar oo laga fogaado asxaabu shar waa inaad ka fogaato dadka ehlu sharka horta marka horeba inaad xiriir la samayso maahin oo nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qof walba ha iska fiiriyo qofku saaxiib la noqonayo marka qofkaad saaxiib la tahay hadduu xun yahay adiga laa shaka waa inaad mustaqbalka xumaanaysa waa suuragal haddaad daaci tahay od leedahay dadkana macluumaadkooda wax ka bedelaya nacam waa kugu raacsanahay laakiin waa inaad qudwo xasana u noqoto laakiin waxaan ka wadaa sida asalka ah qofka haddii qof ahlu qiiba yahay oo dadka xanto adigana marka dambe dadka xamanaysa hadduu ahlu drugs uu yahay dee nin adoo caafimaad qaba suuragal maahin in qof daroogo isticmaala aad xiriir idinka dhexeeyaan marka ha laga fogaado asxaabu sharka hana loo naseexeeyo xumaantana ha laga soo saro tooba sax inayna la imaano inaynu ka toobateena ilaahay usoo laabanaa la rabo subxaana wa tacaala meel kastoo joognaba toobada waa muhiim albaabkiisa waa furan yahay 24 saac ilaahina wuxuu jecel yahay addoommadiisa kuwa usoo laabta ha isdhihin dembigaasaa gashay dembi kastoo gasha allah rabbilcaalamiin allah wuxuu leey yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmati war kuwa addoommadeyda xadgudboon raxmaddii alleh ha ka quusanina wa aniibuu ilaya iisoo laabta wa aslimuu ii hogaansama marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku leeyahay soo laabo ka soo laabo xumaanta ka soo laabo u soo laabo wanaagga ilaahay albaabkiisa 24 saac way furan tahay allaahuma 2 mar unba albaabkaas kaa xiran yahay oo ah markay malakamoodka ku yimaado oo geerida kugu soo xaadirta toobada laga aqbali maayo siduu nabigeena tilmaamay sala allahu calayhi wasalam fircoon baa laga aqbali lahay markii baddii ku dhacay oo la maansheeyey oo la qarqayo wuxuu yidhahda alaana hadda ayaan toobad keenaya oo soo laabanaya oo allahna wuxuu yidhi ma markii hore intaad qad casaytu min qabli ayaad hadda leedahay haddaan soo laabanaya marka qofka markaas laga aqbali maayo marka labaad waxaa waaye qoraxda markay galbeed ka soo baxdo bariga ka soo baxdaa galbeedka hadday ka soo baxdana laga aqbali inta kale waa furan yahay 24 sac ilaahayna addoonkiisii aad ugu farxaa marka uu soo laabta ilaahay wax uga farxad badan ma laha ilaahay u noqo dembi kastoo gasha dembiyadan ayaa la yaraysanin laakiin dembiyada waa in laga toobad keeno shuruudda toobana waa inaad ilaahay u soo laabato waa in caziimo lagaa helo waa inaad dib dambe uga shalayso xumaantii aad ku jirtay qodobka afraad hadduu xaq bini aadan yahay xaqii bini aadanka u celi qof baa xamatay qof baad dhibaataysay qof baad mashaakilaysay u sheeg oo waxaad tirahdaa walaalkaygiiyo walaashayda dhibkaas baan kuu geystay haddii aysan balaayo ka badan laga cabsanayn imaamu nawawi raxmatullahi caleyh wuxuu leeyahay fii kitaabihiisa riyaal saalixiin haddii laga cabsanayo arrimo badan inay ka yimaadaan salaad kasta markaad tukato u duceey hebel ama heblaayo ilaahu dembigooda dhaaf dheh ilaahu dembi waalidkood dhaaf dheh u duceey ilaahay subxaana wa tacaala wuu ka aqbalaa addoommadana markay kala maqan yihiin isu soo duceeyaan waxa waaye ducadooda rabbilcaalamiin waa aqbalaya markaynu isu soo ducayno meel kastoo joognaba niyad qaalis ah niyad wanaagsan allah waxaan ka rajaynaynaa dhammaan idinkii anigii inla hadlaya in maaragtay dembiyadeena dhaafa oo dembi waalidkeena dhaafa allah subxaana wa tacaala dhammaanteen inoo naxariis ahlan wasahlan yaa ramadaan marka ramadaan waxaa lagu dhahay cabitaankii cuntadii markaad soomantahay iska ilaali waxaad iska ilaalinaysaa waxyaalaha maaragtay dagaalka waxaa ka mid ah xanta waxaad iska ilaalinaysaa marka inaad dadka xamata waxaa kaa mamnuuca inaad sigaarka cabto sigaarka kitaab wa sunna markaba xaaraam ma ahay waqtigaada ha ku dhuminin waxyaalaha activityga wanaagsanayn muusiga ha dhegeysan muusiga asalka marka horeba xaaraan buu ahay bisha ramadaan camal kastoo wanaagsan oo samayso ajarka waa la laabalaabaa haddaad xumaan samaysana waa dabal marka ogow marka inaad iska ilaalisa salaada ku dadaal barashada islaamiga baro qur-aanka kariimka dikriga badso ducada iyo dadka masaakiinta waxaad quudin karta quudi bishaas insha allah kuna dadaal waxaan barnaamijkan idiin soo gudbinaa anoo cabdildiif aadana dhammaan waxaan idin leeyahay meel kastoo joogtaanba waxaa idinkaga tegay amaana allah